labada wiil saa isku kala bedelanaa ku sheey labada wiil waa isku kala bedelanaa ku dhikii waxaan rabaa inaan arrin muhiim aan ka hadlo programkii ku saabsanaa maamadii iyo gabdhaheedii mataanaha qarniga oo labada maalmood u dambeysay social media xoog haystay waxaana rabaa si waadix oo cad inaan uga hadlo anigu hadalka ma jeclin inaan leexleexiyo waxaan jeclahay sida igu soo gaaro saxda inaan u sheego sida saxda aan u arkay markaas waxaa jirta markaa arrimo badan oo waxaa jiro ininka inaga qarsoon haddaad tihiin daawadayaal waxaa jiro dadkan soo hadlaya oo social media imaanaya oo kaarka victimka xoqanaya 90% in iyagu victim loo yahay waxaa kaloo rabaa inaan inii sheego haddaad waara caasi tahay waara caasi baa dhalaysaa haddaad daroogisto tahayna daroogistaa dhalaysaa nafsanin naartii baan ku ogahay cadaabkii baan ku ogahay caasi waalidiin ma ka bare waay iyadii ubadkeeda yaa hore ii soo hogsatay gurigayga buuxay hadda ka hor ay intay iga iibsatay iyadoo gabara iga taariibtay oo gurigoo dhaqdhaqan aan u imaaday yaa hore inkaan u subatay aabeeda sakaraada muslim u sheego in aabaha qaxootigu sakaraad ku yahay waraabaa ma qabay tiri waalidna ma qabay arxanna ma qabay labada wiil saa isku kala bedelanaa ku sheey labada wiil waa isku kala bedelanaa ku dhikii ida saxibkeeda anaa la hadlaa habeenkaas kii ani liibar raban ida la hadlays habeenka labaad markuu isku imaaday waa marka dana oo la kala shikinayo anina waxaan dhahay siyaam xidha saxibkeyga anaa galaabay caawa habeenka labaad ee adinkaaga oo ani liibaraa la iska aad la hadal ma aha 20 jiro mana ka sii weyno waa gabdho yaryar oo da'doodu aad u yar tahay magacooda waxaa lagu soo koobay mataanaha qarniga waa laba gabdhood oo mataana ah iyagoo oo da'da jooga dhaqankan inay ay ku dhaqmaan waliba ay ku faraxsan yihiin oo media laga wareysanayo yaa ka mas'uula mas'uuliyadooda yaa ay saaran tahay su'aashaas waxa ay dul saaran tahay calaamatu su'aal iyadoo yar bay igu aasiyowday haddana iyadoo weyn oo intaas la eg baa ma aragtaay anigu hadda waxaan aan la yaabay oon la ka faaray intaasoo sano gabadhaas aniga iyada isma arkin waa caasi waalidiin aabaheedoo sakaraada hataa muslim u sheegay waxay tiri walaanigu dad ima dhalin bay dhahday yaa aabaheedna hore buu u habaaray anigana horaan u habaaray yaa haddana dhib bay aniga isoo taaraysaa kuma aqaanay tiri naayamaada dhalin bay tiri hadda ka hor waxaa i dhalay bay tiri dad gibil cad baa i dhalay tiri sawiraad kasteen ma marka naagta waa caasi waalidiin sababtii aniga hadda aniga iyo ilmahayga ii nafsanayso yaa yaan la yaabana waa inaa waxay sheegaysoo dhanna waxba kama jiraan waa been waa caasi waalidiin allii rasuul ka furatay iyadana waa daroogiista gabdhahana waa daroogiista gabdhaha waxa afka waxa ugu shubayayaan waa iyada inay cadin iyo madowyin intaasoo sano ma arkin iyadii ubadkeeda tuna deedan walaalkeeda ahay waxaan yani faraha bulshada yani ku wado waa been wax ka jiro lacagihii meel kasta oo meel dalxiis waa lacagtii way ka dhamaatay lacagta hadday ka dhamaatay hadda meelay aada malahan gabdhihiina way ka halaaween xamaray ku sii daysay lacagii haddana lacagihii u baratay inay lacagihii qaadatay rabtaa lacag la mid ah beentaasi soo dhoodhoobtay baadiye markuu geey gabadhii uur libaatay guri ku soo laabatay wallahi yaa ku uureynaaya taabay dhahday qisadaasay ku dhacday qisa dhacday waa adduunka walba ka dhacday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عصبي ولاشين رومي جنال وإن لا البيت بيتكم والبنت بنتكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أفضل صلاة والسلام مددر بايني قناة سوري دوادا أنواني في عنا الحمد لله لك جنالك كالواجه روتينك وسوق لناي ما تمسوق لك وسوق لنا يا مهودن قبب حوغنا جرو آد قبب أنا ورقد الأرق ولا مقال أيام أرقتي أي نويمي ولا ليالا وحاربا بروجرام كان أسوأ أرقتي إنان كهلا haddaad caasi waalidiin tahay caasi waalidiin baa dhalaysaa haddaad daroogeysta tahay daroogista dhalaysaa haddaad xaasid tahay xaasid baa dhalaysaa haddaad qof xun tahay qof xun baa dhalaysaa Soomaalidu markay leeyihiin been ma ahan waxay yiraahdeen Soomaalida nin walbaba wuxuu yahay buu dhalaa waxa adiga aad tahay waxaad islaamka ku sameysay waxaad waaridka ku sameysay baabirina awlaadaadu ay kugu soo sameynayaan maamadan dhowr maalmood ka hor ayay social media soo gashay waxay tiri waxaan dhalay gabdho la yiraahdo mataanaha qarniga gabdhahaygii bay tiri suuqay iga galeen banaat shawaaric bay noqdeen qisada maamadana wax yar marka iniga sheegaya
maamadan waxay u tahriibtay Yemen hooyadii dhashay iyo aabihii dhalayba mar hore horta habaareen way deeriyeen hooyadeed waxay tiri iyadoo gabar ah anoo maalin suuqa ku maqan oo irsaaqad u raadiyay bay guriga wixii yaalay noolaa intay xaraashtay bay Yemen u tahriibtay Yemen hadday u tahriibtay Yemen baa waxay ka heshay nin muwalad ah ninkii baa guursaday 4 caruur u dhashay 3 gabdhood wiil bay u dhashay waa la soo kala tagay markii la soo kala tagay ilmihii baa loo kala qaybiyay waxaa la yiri labada yar yar ha qaato labada waaweyn adigu hayso nino labadii waaweynaa ayuu ninkii u korsaday labadii gabdhood yararkan iyada la soo siiyay kabacdi Muqdisho naagtii soo aadi labadii gabdhood soo lama rabin labadii gabdhood ay haysatay inay si wanaagsan u korsato nin bay u soo xareysay gabdhihii ninkii baana farxumeeyay way beeyiraadan si iyagu ay sheegayaan dabadeed labadii gabdhood social media ay barteen maxaad ka yacni hooyo balwad leh oo balwad cunaysa oo aan gurigii ku hooyanayn haday rabto aan gurigii joogin laba gabdhood yar yar oo qurqurux badan oo social media barto soo galay maxaa ka filaysaa hebel dacar baa wuxuu leeyahay kaale video iladu Xuseen Timo Weyna wuxuu leeyahay kaale video ku kala kicinaya على جيسة وحولية كالي موعان بان كاليغايا عمر فيريرا وحولية كالي أنا بقى خفكي كسو عن ساري لها قبر واي وعد بسل واي سوشال ميديا أنا وانا قانا والغو كلا كعينا كالي يلقوليه مركاسا سادون تلقايا لا قبريه سيدي هدبا ولي يرو كوري ودهاي كالي أن كلا كعسني بقى قبريه دروغة لبري دروغة وحادية كتاي ودنكي daroogada wax caadi ah bay ka tahay geedgeedahan gabdhaha la siiyo qashinkan gabdhaha la siiyo oo maxaan ku raada too much caadi ah ka tahay way fahanteen gabdhihii yaraa saasay nolosha uga dhaceen nolosha markay gabdhihii ka dhaceen maamadii waxay rabtaa waxay Soomaali lacag uga aruursato social media soo fariisatay waxay tiri heblaayo أنا دلي وأي نلاش بكدعين ميل والبيس كتشيف صدان مت مكان كيبا كسو بابا أيبا سيد اللو فولاي بالفير وهو يدي إن محاكور على رجمة لها ودخترك يويري مات عليسو يويري بالفيري قبله يركعها فضي حضودي هوي محلو يقانا هوي محلو يقانا قبله دي إني داويسته إني دختر جيسته حتى هذا صومالي وحوي ديسنيسو inay tiraahdo noloshii way ka dhaceen sida loo fuulayay hadda nin ula seexanay oo daroogo loo siinay baa mid waxay ba noqotay madhalaysi waxa la igu siiyo waa beenta social media looga adeegto qofka duu iimaanka la yahay oo daroogo ee qashin bartayna faa'iido ma yeesho maxaa ku soo haray inaan ku sheegnaa maxaa ku soo haray marka inaan ku sheegnaa sirta maxay tahay sheekadii walaalkaas aan yeelay okay walaalkan ee leedahay ilmahaygu kufsaday dhageysta wax yar dhageysta waxaan ku dhibeenaba eedeen anaga aan ugu jirno walaalkaas aan yeelay أنا مكيرجع دوا وان walaalku walaala isla hadlaan ma baahan baa la yiri walaal guriga yimaadana ma aha la yiri walaalahood iyadan waxa la yiri mar hore kala go'een shaqaba isku malaha iyo hooyada aabihina wuu dhintay baa la yiri waxay marka ay hadda u fadeexeynaysaa gabdhahan ay u leedahay walaalkay baa in kufsaday waxaan oo dhan waxay idu afku gelisaa la yiri warkan wuxuu igu soo gaaray meesha hadda ay walaalka u bedeshay gabdhahan nin iyada qabay oo guriga joogay baa farxumeeyay saan warku igu soo gaaray taas wax kala meesha yaala gabdhahan ay leedahay mid baa makaanka dhanba laga soo saaraya oo maba dhalaysaba hadaba uur leedahay xaamilo tahay dadku may u sheegto may sheegin dadka iyo xaamilo tahay lama yaqaano maxay social media hadda u timid waxay u timid inay gabdhaha ay fadeexeynayso oo yaryarka ah oo maaragtay wali da'dooda aad ay u yar tahay inay lacag ku aruursato waxay kale u timid inay fadeexaysato wiilkeeda maqan iyo gabadha yartahay oo gabadha kale oo maqan oo aabahood karsanayo
oo nolosha fiican ku koray oo akhlaaqda loo yeelay oo maxaan ku raahdaa guri wanaagsan iyo nolol wanaagsan haysta bay waxay rabtaa inay fadeexadan dhex fariisiso waxay taagantaa wiilba iga maqan wiilba raadinaya kuwii haysatay war Soomaalidu runta iskuma sheegaan maama kuwii haysatay baad nolosha ka riddi adig baa nolosha ka dhaxsan ilmo aabahood korsanaya maxaa ku dabageliyo ka rabtaa oo inay gabdhahan la dhasheen ugu sheegaysaa adduunka oo dhan oo inay adigu aad dhashay inay iyadu dhuumatay ahayd gabdhahan ay fadeexeenas waxaa ka daran iyada wajigeediya balwadi ka muuqda afkeediya balwada ka muuqda hadalkeediya balwada ka muuqda dariskeediya maxaan ku raay sheegaya waalis yaqaanaa meeshan dadku is yaqaanaan war ana detailkeediyo dhan maamadan hal baa la igu soo sheegay gabdhaha waxay noqonayaan caani iyo bi gabdhuhu waa gabdho yar yar oo arkay baa la yiri nolol qaldan nolosha qaldaneedna raacay laakiin noloshu waxba ka qaldan tahay baa la yiri maamadayba ka qaldan tahay nolosha iyo degnaanshaha maamaday ka qaldan yahay marka Soomaalida waxaan la yaabanahay qofka waqaaq soo yiraahda inay leeyihiin Allah waa victim laakiin ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa in hadda la kala bartay victimka runta ahaa iyo victimkii beenta ahaa lacagta haddii hadda la siiyana way ku tahriibaysaa gabdha shaqo kuma laha caruurna ma kala jecla qoftaan u jeedaan caruurna ma danaynayso haddii ilaahay inii idmayo islaan la soo fariisatay gabdhayga habeenii maalin nolosha ka dhaco la fuulaa gabadhayda sidii loo fuulaa makaankii baa baaba'ay walaalkay baa fuulay oo aan la nooleen islaan halkan la soo fariisatay waxaa raadinaya oo baafinaya wiil iga maqan oo Yemen iga maqan oo aabiiska haystay oo aan wax rabaa inuu wiilkayga la xiriiro wiilku maxaa kartaa uu shaqeeyaa baa leeyahay bas buu wadaa bal fiiriye ma ahan xataa naxdin ee wiilka ka naxaysta iyo hooyinimo inay u raadinayso lacag ii soo dir oo soo tahriibaya war noloshii waa baaba'day noloshii way baaba'day laakiin waxaad ogaataa adigu haddaad nolosha iska tuurto oo nolosha aa iska ridid ubadkaagana nolosha ka dhacayaan zeykar taas waa haddiise qof wanaagsan uusan gacanta ku dhigin oo diin iyo dhaqan leh hadduusan gacanta ku dhigin awlaadaada iyaguna suuqay galayaan hal mid baa awlaadaada badbaadin karta hadda adu nolosha ka dhacda inay ayeeyo fiican haystaan awoowo fiican haystaan habarar fiican haystaan eedo fiican haystaan in ilmahaaga uu ku badbaado waa laga yaabaa waxaa kaloo jiro hooyo balwad leh oo nolosha ka dhacda laakiin aan caasi ahayn iyo waxaa jirto hooyo noloshina ka dhacday caasina ah waxaa kaloo jirto hooyo aan nolosha ka dhicin oo nolosheeda isku dul saaran tahay iyo aabbo oo laakiin caasiyaal ah kuwaas iyaguna ma guulaystaan weligaa ma guulaysanaysid weligaa heer ma gaaraysid caasi ma tahay weligaa heer ma gaaraysid noloshu waa kugu cadaabinaanaysaa marka muhiimadayda aan fiidiyowga usoo duuba wax waaye hadda adiga caasi tahay caasiyaa dhalaysaa hadda adiga nolosha iska ridoo ilmihii ay arkayaan inaad geedageeda cunaysid inaad jaad cunaysid inaad badeecad dhuuqaysid inaad sigaar cabaysid inaad qashin dhan guriga ku dhex cabaysid ilmahaagana beri waa samaynayaan way samaynayaan dabcan way baranayaan wayna samaynaya waxa adigu asmaysa ilmahaaga samaynayaan waa ilmihii adiga macallin baa u tahay macallinka guriga u jooga ilmihii adigu waaye marka qoftaan nolosheedu waa saas